aniga حيتر haddii la guursanayno qof kale ima guursanayo adigoo kaliya ayaa guursanayo go'aan fiicanaad qaadatay qof kartile inaad tahayna waad ii caddaysay laakiin su'aasha meesha taaganaa waxay tahay siday igu oggolaanayaan waalidkaada inaan adiga ku guursado middaasaa la rabaa anigaa u sheegaya waana ka dhaadhicinayaa sidee maxaad samaynay adiga tuug weyn oo laga dambeeyaa taamaahno waxaad samaynaysaa 100 gaari ayaad ii soo diraysaa taaj meel ayaana iigu keenaysaa wiil meeqa gaari 100 gaari iyo 100 staff oo gawaaridaas la socdaan adigana gawaaridaas soo maraysid helicopter ayaad ku imaanaysaa markaasna familygayga ayaga ayaa qanacayaan kadibna weeba iska ogolaanayaan arooskaasna arooskayga maaha waa walaasha iga yar arooskeeda familkaygana haddii ay arooskaas arkaan adiga way ka helayaan wayna ku jeclaanayaan walaalka iga yaraa joog wax uu ku tooran yahay ma laha eber waa wax ma qabta waaye waxaad tiri walaalkayna xaafadda tiinagar ayaad waxaa uga dhisaysaa 10 dabaq 10kaas dabaqoo dahabka lagu gado kadibna waxaad u keenaysaa gabdhaha faashiyonka sameeya oo dahabka u xayeysiinaya kadib aniga adigana arooskana sidaas ayuu ka dhacaya oo waxaa noqonayaa xaaskaaga kadibna waxaad ii samaynaysaa 335 saari ayaad ii keenaysaa taasna waxay la micno tahay inaad maalin kasta hal saari ii keenaysa kadib aniga adigana nolol farxad leh ayaan ku wada noolaanaynaa ilmana waan isku dhalaynaa wax walbana way soo dhammaanayaan waa waree ee tan haamaan waaye maalin kasta hal saari inaad xiritid kadibna aad tuurtid mar labaadna aadan xirinin idhigeys abuu macaano riyooyinka iyo rajooyinka aan leeyahay haddii aad ii rumayso aniga adiga saasaan isku helaynaa haye ma ii rumaynay sidoo si aan kuugu soo dhowaado rumays ah hababaayey iga soo gaara hey kaalabal intaa socotaa warnaaka ammaan ay heshay waxaan awoodayda inay qoortii ii gelinaysaa iga soo gaaray aryaa i qabto